السلام الله عليكم أخيارتا نلا سعوتا جمعة وناكسن أيان إذن الله يحي كسو دوادا برو وكودا بشا مي سندكا لبكن إيا لحي لباتن markaan eegno gobolka bariga dhexe maanta xiisadu waxaad moodaa inay yeelanayaan wajiyo kala duwan iyadoo dhinacyadii lahjadaha adag isku adeegsan jiray ay hadda ka sii darayaan war ka soo baxay saraakiil sarsare oo Mareykan ah ayaa ku waramaya dawladda Iran in xabad joojinta ay uga faa'iideysanayso soo saarista gantaalo kale oo hor leh oo ay ugu diyaar garoobayso dagaal in ay ku gali karayso kana hortagi karayso dhinacyadii ay ku loolameen gobolka dawladda Iran maanta 6 wadan oo Carbeed ay ku eedeysay inay qayb ka ahaayeen weerarkii lagu soo qaaday wadankooda muxuu yiri safiirka u fadhiya qaramada midoobay dawladda Iran oo maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay war ka hor sheegay taasoo dawlado fara badan oo Carbeed iminka ay la kulmayaan wajigabax Iranna waxay sii daysay sir xasaasi ah madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump waxa hor yaala 3 khiyaar oo kala duwan uu doonayo in uu mid ka qaado dawladda Iran iyadoo xubnaha golaha ammaanka ee aqalka cadna ay soo jeedinayaan Trump 3 khiyaar mid kamida waa inuu si degdeg ah u qaato si Iran looga hortago wasiirka amuraha dibadda wadanka Iran Abbas Araghchi waxa uu markii ugu horeeyay qoraal dhaliila uu ku weeraray Pentagon-ka Mareykanka isagoo ku tilmaamay xitaa waxaad ka been sheegaysaan qasaaraha idin soo gaaray iyo qarashaadka ay isticmaasheen waxuu yiri markaan eegno shacabka Mareykanka Iran ayaa uga xanuun badan dawladda Trump uu hogaamiyo fasirka lahjadaasi maxaan ku macnayn karnaa iyana barnaamijka ayaan ku lafagurayaa khiyaarta inala socotay soo dhawaada galabnimo jimco ah ayaan barnaamijkan idin la wadaagaya aan badino salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ducada waliba galinka dambe ee jimcada inta badan culimada waxay sheegaan saacadaha ducada la ajiibay inay ku jirto saacatul ijaaba la yiraahdo oo maalinta jimcada lagu dhax qariyay markaan aad u duceysano nabiga calayhi salaatu wasalaamna aan ku sallino sidoo kalena dadkeena jilicsan ee nugul aan gacan siino waa mahadsantihiin soo dhawaada aan ku horeeyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump 3 khiyaar ayaa hor yaala in uu mid qaato si dawladda Iran uu xal uga keeno dagaalka uu kula jiro mid kamida waa qaaditaanka weerar xoog leh oo dawladda Iran ka dhana halka labada kalena ay yihiin khiyaaraad diljilicsan hasaatee lama oga saddexdanba mid uu Trump qaadan karo caawa ayaa la filayaa inuu Congress-ka hortago maadaama maanta ay ku eg tahay 60kii maalin ee loo ogolaa in uu weerar ku qaadi karo dal ka baxsan Mareykanka haddii dagaalka uu sii dheeraanayo ujeedadu waxay ahayd in uu fasax ka qaato Congress-ka uu damaanad sharci helo waxa cad Trump taasi inay ku adkaan karayso hasaatee lama oga sida jawaabaha soo baxaya ay noqonayaan maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegayaa in uu qiimeynayo 3 ikhtiyaar oo waaweyn oo istiraatiiji ah si wax looga qabto xiisadda si xumaanaysa ee ka taagan gobolka bariga dhexe ee kala dhaxaysa dawladda Iran sida ay qorayso majalada The Axios oo xiganaysa saraakiil Mareykan ah gudoomiyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka iyo taliyaha taliska dhexe ee Mareykanka Brad Cooper ayaa Trump waxa ay warbixin socotay 45 daqiiqo u gudbiyeen iyadoo qorshayaal militari oo suuragal ah la beegsan karo dawladda Iran ay ku jireen warbixinta ayaa timid iyadoo Washington ay sii wado cadaadiska dhaqaale iyo militari iyadoo adkeynaysa in Iran aan loo ogolaan doonin inay hesho hubka nuclear-ka sida Trump uu sheegay ikhtiyaarka koowaad ee Trump ayaa ah fulinta weerar militari oo degdeg ah oo dawladda Iran lagu qaadi karayo si wax looga qabto tilaabooyinka si xoogaysanaya ee dawladdaasi iyo awoodeeda kobcaysa ee gobolka bariga dhexe ku faafaysa khiyaarkan fulinta ah ayaa la leeyahay waa weerar degdeg ah oo ka kooban duqeyn xadidan oo lagu beegsanayo kaabayaasha muhiimka ah ee Iran ujeedadu waa in si degdeg ah loo abuuro isla markaana fariin digniin ah loo diro iyadoo laga fogaanayo dagaal qaadan karaya muddo dheer sida dawladda Iran ee hadalka laga helayo Mareykanku ay tilmaamayaan khiyaarka labaad ayaa waxa uu diiradda saarayaa in lagu sameeyo marinka Hormuz
biyo-xireen weyn oo dowladda Iiraan taaban karaya. khiyaarkan ayaa waxa uu diiradda saarayaa furitaanka qayb ka mid ah marinka Hormuz iyadoo Mareykanku uu damacsan yahay in amni ahaan uu sugo marinbiyoodkaasi si loo ilaaliyo xorriyadda maraakiibta caalamiga ah. qorshahan ayaa la sheegay inuu u baahnaan karo joogitaanka ciidan oo xadidan gaar ahaan jasiiradaha Iiraan ee ku dhow marinbiyoodka. khiyaar kale oo saddexaad ayaa jira oo isna ku dhafan ciidamada Mareykanka ee jooga gobolka Bariga Dhexe, waana howlgal gaar ah oo aad u adag oo ay fulinayaan ciidamada Mareykanka kaas oo lagu bartilmaameedsanayo qabashada ama ka saarista baa la yiri uraniumka la hodmiyay ee ku jira gudaha wadanka Iiraan. Tallaabadan ayaa loogu talagalay in si toos ah loogu weeqo awoodda nuclearka ee dowladda Iiraan. saddexdan ikhtiyaarba waxa ay sheegayaan in saacadaha soo socda ay noqon karo mid ka mid ah xasaasi ah uu qaadan karo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo hadda wajahaya mid ka mid ah culeysyada ugu waaweyn. Mohammad Baqir Ghalibaf oo ah afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraan ayaa goor dhaweyd waxa uu qoray qoraal oo mooday inuu ku diganayo Washington isagoo tilmaamay sidee u damacsan tihiin inaad cunaqabateyn u saartaan una go'doomisaan dal xuduudihiisa ay aad u waaweyn yihiin. haddaba tallaabooyinka aad qaadaysaan waa kuwa laga keenay Manforara ayuu ku yiri qoraalkiisa. gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iiraan Mohammad Baqir Ghalibaf ayaa sheegay in Iiraan aan la go'doomin karin sabab la xiriira juqraafi ahaan xuduudaheeda dhaadheer iyo waliba xiriirada ay la leedahay dowlado badan oo daris ah. hase haatee tallaabooyinka ciidamada Mareykanku ay qaadayaan ay yihiin hal bacaad lagu lisay. qoraal uu ku baahiyay barta X ayuu Ghalibaf ku sheegay in haddii laba derbi laga dhiso gudaha Mareykanka isagoo tusaale u soo qaadanaya waxa uu leeyahay mid ka socda New York ilaa xeebta galbeed iyo mid kale oo ka baxsan Los Angeles ilaa gaaraya xeebta bari, dhererkoodana uu noqon karo 7,750 kilomitir, taas oo sheegaysa in ay weli gaaban tahay. taas ayaaba u sheegaysa Mareykanka haddii xitaa tallaabooyinkaasi uu qaadayo mid u dhiganta inay weli xuduudahaasi ay gaaban yihiin marka loo eego dowladda Mareykanka. haddii hadalkan oo duurxula si weyn loo fasiro waxa uu noqonayaa Mareykanku ma tahli karo dhul ballaaran oo xuduudo waaweyn in uu cunaqabateyn saari karo isaga un baabada fadhiya ayuu yiri innaga tallaabo kasta ayaan qaadi karnaa. qoraalkiisa waxa uu sidoo kale leeyahay nasiib wacan cid kasta oo isku dayaysa inay go'doomiso dal leh xuduudo intaasi le'eg ayuu Ghalibaf hadalkiisa ku yiri isagoo fariin toosa u diraya xogayaha difaaca Mareykanka Pete Hegseth oo ku dhawaaqayay maalmihii ugu dambeysaba dalkaasi in ay xuduudihiisa iyo waliba go'doomin dhinaca badda ah ay ku hayaan Mareykanka. dhinaca kale dowladda Iiraan ayaa 6 ka mid ah dalalka Carabta ku eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen weerarkii 40 maalin soconayay ee lagu soo qaaday dowladda Iiraan. ninka diblomaasiga ah ee u fadhiya ama safiirka dowladda Iiraan ee qaramada midoobay ayaa hadal uu ka jeediyay golaha ammaanka waxa uu ku yiri sidee u dacwoonaysaa adigoo dalkaada iyo biyahaada wadan kale laga weeraraya ruqsadda ogolaashiyahana adiga laga haysto. haddaba qoraalka ama hadalkiisan ayaa Ivani waxa uu sheegay in dalalkan ay u ogolaadeen saldhigyo military oo ku yaala dhulkooda in laga fuliyo weerar cirka oo ku wajahan Tehran, waxna uu ku dooday in Iiraan aysan bilaabin colaadda balse ay beegsatay buu leeyahay xaqa isdifaaca sida uu dhigayo axdiga qaramada midoobay taasoo dhammaan lagu saleeyay weerarada dowladda Iiraan ay qaadeen. dalalka uu sida cad u xusay waxaa ka mid ah isutaga Imaaraadka Carabta, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar iyo Jordan, waxaana dhammaantood uu ku eedeeyay in ay yihiin dalalkii ka dambeeyay weerarka lagu qaaday dowladdaasi Iiraan iyagoo wadamadooda la isticmaalayo sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale waxa uu yiri wadamadan ayaa ah kuwa golaha ammaanka u gudbiya ashtaka ka dhala dowladda Iiraan iyagoo saamaxay buu yiri in wadankooda weerar looga soo qaado gudaha dalkeena. haddaba miyaanu gacmaha is saaranaa haddiiba cadowga inagu soo duulaya ay saadka sahayda biyaha iyo dhulka ay ka soo duulayaanba
uu ka imaanayo dalkaasi ama wadamadaasi lixda ah ee carbeed ee khaliijka ku yaala. ma jiraan weli war ka soo baxay dowladahan oo xitaa hadda la soo warinayo in khilaafaad weyn uu soo kala dhaxgalay qudhooda sida wararku ay xaqiijinayaanba. inta xabad joojinta ay soconayso ee gobolka bariga dhexe, dowladda Iran ayaa ka faa'iideysanaysa Mareykanka xabad joojintan uu ku dhaqaaqay in ay ku soo saarto gantaalo, taas oo dowladaha qaar iyo waliba saraakiisha sarsare ee Mareykanku ay walaac ka muujinayaan. Iran ayaa haysata khubaro si weyn ugu wanaagsan soo saarista gantaalaha, laakiin Mareykanka waxa uu arkaa tani inay tahay in meeshii hore loo laabanayo oo ay Iran dib u soo saarayso wixii looga baqayay. mas-uul sare oo Mareykan ayaa sheegay in Iran ay ka faa'iideysanayso muddada xabad joojinta si ay dib ugala soo baxdo buu yiri gantaalo ballistic ah iyo saanad military oo horey loo qariyay xarumo dhulka hoostiisa ah ama lagu aasay burburka gabi ahaantiiba markii la duqeeyay. sida uu baahiyay telefishinka MBC ee Mareykanka, Iran ayaa hadda dadaal xoogan ku bixinaysa soo saarista gantaalada iyo qalabka kale ee military, iyadoo la sheegay in ay qorsheynayso dib u dhis degdeg ah oo lagu xoojinayo awoodeeda gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa in ujeedada Tehran ay tahay in si dhaqso leh dib loogu howlgaliyo awoodeeda militariga si ay ugu diyaar garoodo baa la yiri weerar suuragal ah oo ka dhana bartilmaameedyo ku yaala bariga dhexe haddii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu dib u go'aamiyo in weerar military uu ku qaado gudaha wadankaasi. inkastoo Washington ay horey u sheegtay in badan oo kaydka hubka ah in la burburiyay, haddana khubarada gobolka bariga dhexe sida weyn u faaqidaya waxa ay tilmaamayaan dowladda Iran inay weli gacanta ku hayso diyaarado drone iyo hub sawaariikh oo ay iminka muujinayaan inay awood xoogan leeyihiin. sawirro lagu qaaday dayax-gacmeedyo kala duwan waxay muujinayaan dowladda Iran in saldhigadeeda dhulka hoostiisa ay ka socdaan dadaallo xoogan oo la doonayo in dib u dhis loogu sameeyo ciidanka qaybta loo yaqaan geofadaiga ama qaybta gantaalaha iyo droneska isticmaala ee dowladdaasi. wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran Dr. Abbas Araghchi ayaa ku kajamay dowladda Mareykanku iyo Pentagonku inay qarinayaan khasaaraha dhaqaale ee ka soo gaaray dagaalka Iran. 25 bilyan ayay ku dhawaaqeen buu yiri inay dagaalka ku qasaareen oo la qarash gareeyay, laakiin xaqiiqada dowladda Iran ay hayso waa ay ka badan yihiin oo waxay gaaraysaa khasaaraha Mareykanka ee dhinaca ka soo gaaray dhaqaalaha inuu gaarayo 100 bilyan oo dollarka Mareykanka 40 maalin ee dagaaladu ay socdeen. waxa uu sidoo kale qeexayaa in shacabka Mareykanku ay la kulmayaan cadaadis dheer iyadoo dhammaan ballanqaadyada Trump uu la galana ay meesha ka baxeen. dowladda Iran ayuu ku tilmaamayaa inay tahay mid adag oo birlaba oo aysan suuragal ahayn inay si degdeg ah dowladda Mareykanka iyo nidaamka Israel ay u ridaan xukunka wadaadada ee kacaanka. shacabka Mareykanka ayuu ugu baaqay aragtida Trump ee Mareykanka ayaa wax kasta ka horeeya. waxa uu leeyahay hadda waxa uu ka dhigay Mareykanka ayaa wax kasta ka dambeeya, sababtuna waxa ay tahay in Israel ay leedahay yoolasha iyo bartilmaameedyada Mareykanka dagaalada uu ku qaadi karo, isla markaana dagaal kasta oo dhaca uu yahay cid go'aaminaya ra'iisul wasaaraha nidaamka